الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلوان عبد الرحمن سنتر عبد إسماعيل سنتر ورياشة ومهسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي بشركة نجارات وحكو سابسين هاي سيدا عدد هادبا حالة دلكا iyo waxa muuqda kulay waxaan wada ognahay barihii dambe waxa soo kordhay dalkan sida aad ogtihiin xaalado kala duwan oo soo maray maraaxil kala duwan oo soo maray Soomaalidu waxyaabaha ay heshiiska ku yihiin waxa ugu horeeya dastuurka haddii dawladnimo laga hadlaayana waa in laga hadlaa heshiis waa in laga hadlaa dastuur haddii dastuur la ogol yahay in qof samaysto ama koox samaysatana dal ma wada jiraayo waxaan ogtiin waxyaabaha ka dhashay oo kala duwanaanta ah isla dastuurkii oo la bedelay in haddana la rabo in lagu qabto doorashooyinka dalka ka dhacaya inay one man one vote ahaadaan dhowr jeer aan ka hadalnay annaga aad aan u soo dhaweynayna laakiin marka ugu horeysa one man one vote dalka ma ka dhici kartaa see uga dhici kartaa see noqonaysa ayadoo one man one vote laga hadlaayo haddana 4.5 in la ilaaliyo annaga sida ay nala tahay noogu muuqato marxaladda hadda lagu jiro ama dhinac siyaasadeed ama dhinac amni ama dhinaca sharciga dastuurka ilaan dastuurkii shacabkan ay ku heshiiyeen oo lagu hogaaminayay waa la bedelay waxaa la samaystay dastuur khaas ah marka doorashada dhici kartaa maxay noqonaysaa waxaan aaminsanahay doorasho one man one vote iska daayay tii la yaqiinay oo hore loo soo qaban jiray inay adkaanayso in la qabto sababtuna wax kale ma aha haddaan dastuurka heshiis lagu ahayn waxyaabaha kalena heshiis lagu maaha maxaa yeele waxa kale ayaga ka dhalanayaan maalan guddiga doorashooyinka maxaa lagu beesgareeyey ma guddi kooxu samaysatay miya mase waa guddi qaran oo loo dhan yahay lagu kalsoon yahay oo doorasho qaba kara hay-adihii kale ee haddii la isku qabto doorashada garsoori lahay ma noo dhisan yihiin nooma dhisna ayib dalka hadday doorasho ka dhacayso soo maaha dalkoo dhan inay ka dhacdo ama meesha aysan ka dhacaynin la ogyahay sababta aysan uga dhacaynin ma ka wada dhici kartaa dalka oo dhan asbaabaha amniga ka sokow asbaabo siyaasi ah oo doorasho midaysan dalka aysan uga dhici karin ma jiraan hadday jiraan soo looma baahna in la xalliyo intaan doorasho laga hadlin waxaan u malaynaa markaas inuu aad u cad yahay nidaamka markii uu doorashada galayay laba guruubaa ka maqnayd doorashooyinka waxaa ka maqnaay somaliland iyo al-shabaab madaxweyne al-shabaab waxuu dhahay ayaga lalama hadlaayo waa cagtaa la marinaa meesha wax ku dambeeyeen oo ogtihiin somaliland waa maqan tahay waxaa raacday puntland waxaa raacday jubbaland marka doorashada la qabanayo ma waxaa laga qabanayaa magaalada muqdisho baydhabo jowhar iyo maxaan ku idhaahdaa dhuusamareeb taasoo ma abuurayso dadku inay kala tagaan oo kala joogaan oo haddana isu doonidooda waqti badan lagu bixiyo haddii la rabo doorasho in la hagaajiyo oo doorashooyinkii hore wax ka fiican la sameeyo waxaa la heli karaa khiyaaraad fara badan oo dadku ay ku heshiiyaan raalli lagu yahay ka fiican kowii hore ka corruption yar ka nadiifsan aa la heli karaa ma laga fikiray ma loo soo jeedaa waxyaabaha qariibka waxa waaye guddigii oo shaqaynaya in lagu sheegayo iskuullada iyo jaamacadaha dad in laga qaadayo degmooyinka la gelinayo oo loo diiwaan gelinayo doorashooyin marka waxay noqonayaan doorasho qola samaysatay aan loo dhammayn dalkan conflict ee ka soo kabanaya
maxaa konfalakti cusub loo gelinaa lama baahna marka taas waxaa jiri kara doorashooyin laga heshii karo la isugu imaan karo dadka maqan ay ka qayb qaadan karaan kuwa jooga ka qayb qaadan karaan nadiifa marka haddii ay noqoto sheekadu waxa aniga aan rabo kaliya ka shaqeynaya dalkan waxaan aaminsanahay taas dalkan meesha hadda la joogo waxa soo gaarsiiyay waa dalkan ma shaqeeyo qofaa ka shaqeeya baarlamaan ma shaqeeyo golo wasiirra ma shaqeeyaan maxkamaduhu ma shaqeeyaan waxaa shaqeeya hal qofaa shaqeeya dalkan mas-uuliyaddiisa hal qof ma qaadi karo waa ku culustahay awooddiisa ma aha marka waxaa la rabaa haddaan dowladnimo ka hadlayno institutionna inaan ka hadalno sharciga waxaa loo bedelay qof dartiisa guddiga waxaa soo samaystay qof dastuurka waxaa bedelay qof taasna lama aqbali karo waxaan u soo gelaynaa jiha wareerka arrimaha dibadda sidaa og tihiin soomaaliya waa dal soo kabanaya u baahan calaaqaad wanaagsan inuu la samaysto adduunka nabad u baahan intaas waa isku waafaqsanna see loo gaarayaa hadafkaas haddaysan wasaaradda arrimaha dibadda istaraatiijiya lahayn oo aysan xukuumaddu istaraatiijiya ka lahayn waxaa dhacaysa waxa hadda dhacay oo runtii wax aad iyo aad iyo aad looga fiican yahay ah maxay waxa dhacay waxaa arkaysaa 10 heshiis oo 10 dowladood oo iska soo horjeeda lala galay heshiisyada qaar waxay dhacayaan hal maalin waxay ka dhacayaan 2 caasimadood waxayna ka dhacayaan 2 caasimadood oo iska soo horjeeda diblomaasiyadda Soomaalida arrintaas ma caawinayso diblomaasiyadda Soomaalida arrintaas ma caawinayso waxaan rabaa inaan dul istaago heshiiskii hadda ugu dambeeyay oo madaxweynuhu safarka ugu tagay Itoobiya wuxuu noqday mid dadka Soomaalida ay aad uga dhakafaaraan aysan filanaynin inuu dhici karo isla markaas mid kale wuxuu ka dhacay Qaahira 3 dowladood oo Soomaaliya ay ka mid tahay Eritrea iyo Masar aniga kolley ma maqlin arrin noocaas inay hore u dhacday ma maqlin Itoobiya haddaan u soo laabano darisaan nahay walaalaan nahay laakiin heshiis maahay waxaan rabnaa inaan runta sheegno inaan heshiis ayna madaxweynaha isagaa sheegay waxaan u malaynaa ereyadiis inaan wada xasuusanno al-shabaab ayagaa ka cadowsan maxaa isbedelay waxaa loo baahan yahay in la ogaado waxaa jirta qaraar la mariyay baarlamaanka oo dhahaya Ethiopia lalama hadli kara ilaa ay ka laabtaan memorandum of understanding ma ka laabteen go'aankoodii memorandum of understanding ma ka laabteen Ethiopiaanka ma laga hayaa cod cad ma laga hayaa madaxweynihii shalay abaabula mooshinka oo baarlamaanka mariyay inuu asaga Addis Ababa tago oo uu jebiyo qaraarkii baarlamaanka soo kuma noqonaysa qaraar yani xurmad darro martaqaana baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka yaa weyn horta ma la fahamsan yahay baarlamaanka weyn baarlamaanka wax doorta baarlamaanku waa sharci dejiye saa wax doorta marka baarlamaanka in qaraar la geeyo qaraarkii wax ka soo horjeedana dawladda ay samayso arrintaas waa arrin dawladnimada dhaawac ku ah طيب Ethiopia anaga hadda waxa laga hadlaa waa bad laakiin ma bad kaliya anaga dhaxaysa bad sa goormay qadiyad noqotay inta ay soo nooladeen bad laga ma hadli jirin Soomaa Ethiopia anaga bad kama hadli jirin wax kale hadli jirin aawan wixii kale oo laga hadli jiray ma laga hadlo qofka raba inuu kula heshiiyo wuxuu kala heshiinaa ko waxa isku haysiin marka ka heshiisiin waxa aadaysiin waxa kala rabtiin marka bad waa naga rabi karaan mushkilad ma laha laakiin Sooma aha wixii aan isku haynaa boqolaalka sano inaan ka hadalno ka heshiino dhamayno kalsooni la soo celiyo kidib la yiraahdo maxaan kala faa'iidi karnaa
badda etoobiya inaysan bad lahayn waa ognahay laakiin etoobiya keliya maan bad lahayn afrika dowlado kaloo bad lahayn soo ma jiraan hal su'aal waaye su-aasha labaad waxa waaye dowladaha badda leh oo etoobiya xuduud kala leh waa in misa 4 dowladood maxaa kalifaya marka annaga inaan bad dhiibno kaligaan eritrea may dhiibto suudaan may dhiibto jabuuti may dhiibto badda ma ka faa'iidaysashaa mase waa qaadasho ma dhegaysatiin madaxda etoobiyaanka markay ka hadlaayaan badda ma dhegaysatiin waxay ka hadlayaan waa qaadasho ka faa'iidaysasho maaha ma nugu jiraa qof bixi kara bad ma nugu jiraa qof bixi kara dhul mas-uuliyadda hore baa sheegto nuguma jirin ma bixi karo laakiin waxaan ka hadli karnaa almasaalix almushtaraka annaga iyo etoobiyaanka maxaan kala faa'iidi karnaa waa ka hadli karnaa marka habka loo abrooj gareeyey etoobiyaanka aniga waxaan aaminsana waa khaldan tahay soomaalidana culaysay ku tahay nabaduna kuma imaanayso waxaan rabaa arrinta dastuurkan ku jiraa weli inaan u laabto baarlamaanka waxaa la mariyey heshiis kale oo dowladda turkiga lala soo saxiixay heshiiskaas lama arkin wasiiradu ma arkin xildhibaanadu ma arkin marka su-aashu waxa waaye heshiis aan la arkin haddii la yidhaha waa la ansixiyo sharci ma noqonaya maxaa yeelay heshiis marka la samaynaayo 2 qayb oo ka imaanaya qodobada heshiiska iyo broseska oo maraayo oo lagu sharciyeynaayo labaduna waa muhiim broseska heshiisyadu ay u maraan golaha wasiirada iyo baarlamaanka waa in la geeyaa heshiiska golaha wasiiradu ay akhriyaan u codeeyaan kadib u gudbiyaan baarlamaanka baarlamaanku akhrin koobaad akhrin labaad akhrin saddexaad uu ku sameeyo ma dhacday ma dhicin halkaas dowladda turkiga waa dowlad runtii dalkan usoo gurmatay sharaf badan ku leh qiimo badan loo hayo laakiin arrintan waxay abuurtay mugdi waxaa kaloo hadda soo baxday markaas baarlamaanka waxaa loogu sheegaya golaha wasiirada heshiis amni inuu yahay oo turkidu ay naga caawinayaan arrimaha badda arrimaha amniga ay naga caawinayaan laakiin hadda heshiiskan etoobiya la soo galnay xagee ka soo bilowday ankaro ka soo bilowday waxay mugdi gelinaysaa heshiiskii hore waxaan rabnaa marka walaalaheenna turkiga waa mahadsan yihiin waa noo soo gurmadeen weliba xilli aniga aan joogay soo gurmadeen abaal iyo sharafa uga haynaa laakiin arrintan waa arrin khatar ah annaga iyo etoobiyaanka darisaan nahay laakiin konfalakti wakhti dheer soo jiraa naga dhexeeyey in la xalliyo waa rabnaa laakiin laysa calaa xisaabina ma aha annaga dhulkeennaa laguma heshiinayo ee waxaa lagu heshiinayaa heshiis labadeenna noo siman oo aan ka wada faa'iidayno ayaa la heshiinayaa kaasaan rabnaa annaga kaasaan diyaar una heshiis kasta oo mugdi gelinaya soomaalida dhulkeedana waxay u arkayaan soomaalidu khatar waa laga yaabaa inay aamusan yihiin inaysan hadlaynin laakiin maalinteeda inay jawaabaan annaga waxaan rabnaa calaaqaadka turkiga oo fiican inuu sii fiicnaado wuxuu ku fiicnaa karana waxa waaye waxa mugdi keeni kara labada dhinacba in laga fogaado waxaan u malaynaa warkaas aad u wacdi waxaan rabaa inaanan warka dhammaynin saaxiibadayaan rabaa warka inaan u hambeeyo xildhibaan cabdiraxmaan kusoo dhaweynaya kusoo dhawow